والسلام يا بهذا الصحافة ما أنت وحنا كفرقرين يا دورة ريموت وقرنك ونهانتي ورك إذا تنقوله مركا وهرين الحمد لله إلهي بان مهض له إلهي بان مهض نقينا نجسوا شبيه عباره أنت بدن ذلك روابكي برية قلبيت با وكدين يهود با وحنا كبرين إلهي إنه أنت كهدي جوجا والربع في عن محن كل هذا وينوسي ينوشبه يعني الله كبرينا وحمانت قضى بدي ذوه الرئية وأن كهل دونا حوي وحنوسوا عدن سيدات كور هيسان محن كل هذا بشي تبلدقي 18 ماي وهو مدحونها جمهورية الصوماليلاند مدحونا أحمد محمود سيلانيو قواميي إن 18 ماي دبالدقيدي يبقام بخي أنه سند والبسم من جبني شاني لعطان كي سنة ولا صور عافي إنه سند كان سيدو لعن إن قرن كجمهورية الصوماليلاند هدي تولتها هاي lacagtii lagu dabaal degi jiray in loo bedelo gurmad awaaraha ah waxa kale oo la go'aamiyay haday tuulo tahay iyo haday degmo tahay iyo haday gobol tahay iyo haday caasimad tahay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo haday qurba jooga tahay meel kasta ay joogaan inay sanadkan kuntiga dhiishaas kaga dhigaan oo ay si adag ay uga fikiraan sida aynu gurmadka abaaraha uga qayb qaadanayno oo wax kasta oo dabaaldegaasa aynu u bedelno qaaraan ururin aynu dadkeena abaaruhu ka maxaan ku raadayay soo barakacay ee ay abaaruhu saameeyeen aynu maxaan ku raadayay la wadaagno dad badan baa jira oo xoolihii ka baxeen haday xoolo iibis tahay waanu dadka dib u xooleynayno iyo haday tahay sidii loo daryeeli lahaa intaba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Siilaanyo wuxuu go'aamiyay oo goostay isagoo dawladdiisana ku amraya shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland uu sheegaya ilaa maalintii dalkan la soo galay aynu xorriyadeena dib u soo qaadanay inaynu nahay ummad isku tashatay isku tashigaas aynu isku tashanaynay ayuun bay tan ka mid tahay oo aynu dadkeena ay abaaruhu saameeyeen aynu la gurmanayna markaas haddii xaflada tahay xafladaas waxa loo bedelayaa qaadaan ururis maxaan ku raadayay ummadda lagu taageerayo wixii dawladdu ay ku qaban jirtay qaadaanka xafladaha iyo nidaamyada noocaasna iyo ciidamadii iyo hawlahaas iyo hawshaasna waxa loo bedelayaa iyadana qaadaan ururis waxa kale oo aan jecelahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha uu hogaaminayo Axmed Maxamuud Siilaanyo iyo xukuumaddiisu waxay iyagoo taakuleynta marinaya guddida abaaraha October iyo November iyo December 2016 u qaybisay in ka badan 100,000 oo qoys taageero raashin ah oo ka kooban 25 kiilo oo bariis ah sonkor daqiiq iyo saliid isugu jira waxay u kala gaadhay gobolada iyo degmooyinka sidan gobolka Saaxil 16,000 oo qoys gobolka Saraar 8,900 oo qoys gobolka Togdheer oo Burco ah degmada Burco la xisaabiya 10,350 iyo dhinaca awood weyne oo 5,200 oo qoys ah Wedwed 2,200 oo qoys
qorolugud 2200 oo qoys Buuhoodle 2000 oo qoys gobolka Sool Laascaanood 11000 oo qoys Taleex 2900 oo qoys Xudun 2600 oo qoys Bohol 1000 qoys gobolka Sanaag galbeed 16300 oo qoys Sanaag bari 11000 oo qoys gobolka Maroodi Jeex Sabawanaag Cadaadli iyo Salaxley Balligubadle Daar es Salaam 12000 oo qoys ما فهمتين wadani waxay tiraaheen mid ka jawaabayna oo garanaysa xubin qaban bay ilaahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka mas'uul u yiraahdeen kiis daldalay xirfadayay kiis daldalay buu iyo kii haraaday iyo kii xoolo ka baxeen intaba waxa ka mas'uul buu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Shiilaan iyo xukuumaddiisa waxaanu qaranka u sheegaynaa wixii aanu gaarsiinay December aakhirkeedii iyo January bilowgeedii waxaa la qaybiyay 22000 oo qoys oo raashin ah 25 kiilo daqiiq ah iyo 3.5 niyabad litir oo saliid ah Saaxil waxaa la siiyay 4000 oo qoys Burco 4000 oo qoys Oodweyne 2000 oo qoys Sool 4000 oo qoys Ergabo 4000 oo qoys Baran 2000 oo qoys January aakhirkeedii iyo February biligoodii waxaa la qaybiyay 30000 oo qoys oo raashin Sacuudigu keenay gobolada iyo degmooyinkuna raashinka oo ka kooban 20 kiilo gram oo sonkor ah bariis daqiiq timir iyo saliid sidan bay u kala heleen Saaxil 4000 oo qoys Togdheer 7500 oo qoys Sool 6500 oo qoys Sanaag 7000 oo qoys Bariga iyo Koonfurta Maroodi Jeex Cadaadli Sabawanaag Salaxley Hawd 4000 oo qoys bishii Maaris waxay gudidu abaaruhu u qaybisay dhammaan gobolada dalka raashin ku filan 24000 oo qoys raashinkaas oo 12850 qoys oo kamidi uu ka yimi Djibouti ama dalka Djibouti inoogu deeqday halka Ethiopia dalkan saaxiibkana shaarkana Ethiopia ay 8500 oo qoys iyaguna inoogu deeqeen inta soo hadheena oo ah 22000 oo qoys ay gudida taakulayntu ku dartay abaaruhu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ويج مدينة هوشن قبطان وحنا ككوبنا 25 كيلوغرام وسكر بريس دقيق يشان لتر وسليدة وحنا قبل ذوك الهلان سيدا تقدر تدور كنو قيس صال تدور كنو قيس سناد تدور كنو قيس قبيلة أفر كنو قيس أوضل لحكن أو قيس ساحل صدح كن يشان بقول قيس Maroodi Jeex 7860 qoys biyaha iyo ceelasha gudidu waxay gaarsiisay gobolada ay abaaruhu ka jirto biyo ka badan 5000 oo booyadood markaan gudideeda leeyahay waa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo garwadeenka ka yahay mudane Axmed Maxamed Shiilaan waxay gaarsiiyeen 5000 oo booyadood ku qiimaysan tahay booyadii $200 oo biyahaas oo si joogto ah u socday una socda ilaa hadda laga soo bilaabo bishii November 2016 ilaa waqtiga la joogo Saaxil 510 booyadood Saraar 560 booyadood Togdheer 1110 booyadood Sanaag 1720 booyadood Sool 100 booyadood waxay gudidu keentay ama ay iibisay 7 booyadood oo waaweyn oo min 100 foosto qaada oo hadda ka shaqeeya Togdheer Saraar Sool iyo Sanaag oo si joogto ah biyaha uga dhaamiya dadka ay abaaruhu saameeyeen 7 booyadood waxay ka qaadeen kiradii iyo magaranaysaa iyo loadkii biyaha badnaa
ayagoo fikir wanaagsan ayuu runtii ahaa aad iyo aadna waa loogu baxsaday guddida waxay dayactireen iyo dhammaystir ku samaysay ceelashan soo socda ceelka Coondaale mashiin labaad Daynabo bam iyo shidaalkiisa oo si joogto ah ay guddidu u bixiso ceelka Qabri Huluul dayactir ayay guddidu ku samaysay ceelka Qoridheere dayactir iyo dhammaystir ayaa lagu sameeyey beebab bam Daynabo mashiinka weyn beebabka dararka tegaya iyo 2 qol oo loo dhisay ceelka Buuhoodle dayactir ayaa lagu sameeyey dibna waa loo kiciyey ceelka Hadaaftimo mashiin baa loo iibiyey ceelasha Arabsiyo mashiin baa loo iibiyey ceelka Fadhixun dib ayaa loo kiciyey ceelka ceelgaal dib ayaa isna loo kiciyey waxaa kale oo ay guddidu bixisaa shidaalka ay ku shaqeeyaan ceelasha Coondaale iyo Qabri Huluul dhinaca caafimaadka xukuumadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hogaaminaya mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo guddidaasu waxay wasaaradda caafimaadka ku wareejisay bishii December 2016 lacag dhan 48,000 oo dollar lacagtaasoo ku baxday mobile teams ama tiimamka wareega caafimaadka ah oo u baxay gobolada abaartu ka jirta iyo cisbitaalka Wajaale si wax looga qabto xanuunada ay sababtay abaartu iyo shubanbiyoodku sidoo kale bishii Abriil guddidu waxay ku wareejisay wasaaradda caafimaadka lacag dhan 100,000 oo dollar oo loogu talagalay in shubanka wax lagaga qabto oo laga furayo 9 xarumood oo ku yaala jiida hawdka ee xadka Itoobiya aan loo leenahay lacagtaas oo la meeleeyay qayb ka midana la sii daayay qaybna hadda la qorsheysan tahay in la sii daayo marka macnaheedu waxa weeye lacagta qaybna way baxday ilaa lacag adugu ilaa Suudaaniya ku dhowna way baxday lacagta qaybtii kalena waxa loogu talagalay hadda oo ay maxaan ku radaa soo 2 qaybood bay markii hore baahay phase 1 iyo phase 2 ayaa loogu talagalay sidoo kale waxay guddidu gaadhsiisay gobolada bari 108 gaadhi oo bal ah ama caws ah ay ku deeqeen walaalahayaga ama walaalaheena gobolka Gabiley ugu deeqay gobolada bariga waxaa kale oo guddidu gaadhsiisay dadkii ku soo guuray gobolada galbeedka gargaar degdeg ah oo ka kooban sidan 1300 kartuun oo caano ah 300 oo kartuun oo timir ah 720 oo iskugu jiray dhar baco iyo bustayaal waxaa kale oo ilaa 1500 oo qoys oo soo guurtada ah la gaarsiiyey raashin isu dhamaystiran waxaan leeyahay saaxiibkay Xirsi Xaaji Cali Xasan madaxweynuhu wuxuu qabtay uu ka mas'uulka yahay waxaad sheegaysaa maahe waa waxa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ugu gurmaday isaga iyo xukuumaddiisu idinkuna markaa warwareegayseen Europe lacagtii qurba joog ay ugu talagaleen dadka inay ka qaataan aad lahaydeen qaranka iyo dalku uu burbursan yahay oo waxa ma jiraan annaga wax dhisayna siiya beenta iyo hagardaamada aad xafiisyada Europe markaad la mareysay adiga yeena ciro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo xukuumaddiisu iyaguna waxay ku hawlanayeen maxaan ku dhahdaa sidii ay uga hawlgeli lahaayeen taakulaynta abaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa in badan arkayseen ayaamahan oo soo noqnoqonayay ilaa inta ay Europe marayeen ee ay waxaan salka iyo raadka lahayn ay wadani la wareegayeen annagu dawladahan uma aanan jawaabin annagoo inay xafiis walba waraaq dhigayeen ay ku hagardaameynayaan madax banaanida iyo jiritaanka iyo dawladnimada iyo astaanta iyo madax banaanida
qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waana nasiib darro oo ayaan darro ragga madaxnimada doonaya shantii sanadood ugu dambeeyayna madaxweynaha dhinac fadhiyay waa xirsi iyo ka gudoomiyaha golaha baarlamaanka inay inoo raacaan oo la xulufoobaan kuwa Soomaaliland jiritaankeeda ka xun oo waraaqaha ay kuwaas u dhigaan waraaqa la mid ah ay iyaguna dhigaan waxa kale oo la yaab leh waryaadeen masmaqlana Soomaaliland waxa wax laga xishooda ah in xirsi xaaji cali xasan oo ka tirsan xisbiga wadani horena uu ahaan jiray wasiirka madaxtooyada uu sheegtay fagaarayaal inuu kaga faano inuu isagu lahaa waxqabadadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu fuliyay sida dhismaha wadooyinka faraha badan ee ugu horeysa wadada Ceergaabo iyo Burcays ku xidha oo qaarna la dhameystiray kuwa kalena weli socdaan dhaqsana loo dhammaystiri doono su-aashu waxay imanaysaa ama hadalku noqonaya haddaad xirso adigu waxqabad kaa lahayd ama horumarkaa dee muu ku raaco waa taa isagoo sidii u socda meel walba ay kasii fiicnaatay markaad adigu xilka haysay wadooyinkuna kasii tiro bateen fulintooda iyo socodkooduna marka la isu qiyaaso adiga iyo ka maanta jooga aanay isu dhoweyn maxay isu taagi waayeen dee adigu haddaad ninka wax qabanaya tahay waxaa بريهن وحسوا بحسي حسين بدن بفاني فاكر وحمود يا دتكنا اللي تشوقين نكن امير عامر لا مارت امين محل امين ارتس ايا لكن حرسي ارنتيسا كوباي سو حرسي اسكا دغاي با وحو ييلي waxyaabaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ku xasuusan doonaa waxa kamid ah xirsi fudayd faan badan ku takrifal xaq jirnimo shaahwareer inqilaab jariska xoor aniguna aan ku darsaday iyo khaayinimo horta xirsi waa ninka taa waxa ka sii daran isagoo xirsi inqilaabkii ka fashilmay ka dhigtay inuu ahaa kii qalin jabintiisii ee xagga siyaasadda isla markaana guddoomiyaha xisbiga kulmiye mujaahid muuse buuxi cabdi ku ceebeeyey ku sii jirista dugsiga siyaasadda ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaa kaloo xirsi sheegay in waa sidoo hadalka u dhigay muuse uu yiri adigu baawarkii ku shaqeysay anigu aan ka tagay war ka qalin jabiyay laakiin anigu waxaan helay meel kale ma garanaysaa ya meel kale oo aan macallin ka ahay ay macallin aan ka ahay ayaan helay hadda fahamtay haddii uu xirsi macallin u noqday kaadiriinta iyo musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro waxaa muuqata inuu helay meel daleena xisbiga kulmiyana waa meel qoodho ku badan tahay xisbigu awooga xirsayba garanaysa waa meel rag iyo dumarba qoodho ay ku badan tahay macallimiin badan ay xisbiga guradeeda jiifaan oo u soo dhabar adeegay siyaasadda waayo aragnimo badanna ku duugan tahay sida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo sida musharaxa xisbiga kulmiye mudane mujaahid muuse biixi cabdi waxaan leeyahay
dee nasiibka kanu maaha midaad macalina ka noqonaysa adigii baarashuudka ka goostay markaad aragtay ragga meesha joogay iyo hablaha joogay xisbiga kulmiye inaad qaar aad la jaan qaadi karin markay aragtay inay yihiin waa adigii baarashuud ka goostay waxaanad u socoto oo aanu garanaynaa waxa weeye waa khaynimadii lagu yaqaanay waa tii aad dhabarka kaga dhoofatay mindiyaha madaxweynihii gacanta ku soo qabtay ee ku barbaariyey ee kursiga ugu xooga badan ee ugu baawarka badan jamhuuriyadda somaliland kuu dhiibay ee aad habeen dhexdii damacday inaad inqilaab ku samayso laakiin aad khibraddeeda iyo maxaan ku rahdaa taladeeda mid baan lahayn iminkana waxaad ku socotaa qolyahaad macallinka u tahay inaad isu cimaamado siday aad ula wareegi lahayd iyagana aad dhabarka uga toogan lahayd sidai aad markii horeba kulmiye aada u samaysay ama iminka waktigan la joogo ama in ceero dabadeed labadaba arrinta kale ee la yaab kale oo xirsi loo soo istaagay masraxa waxay tahay waxa weeye isagoo musabixi samirka uu leeyahay siyaasadda oo ka mid a sifooyinka lagu kala saaro shaksiga siyaasadda u bisil iyo ka kale inuu ku tilmaamo muddada dheer oo muuse u soo dhabar adeegaya siyaasadda mid guuldarro ah ka ah dhinaciisa waa yaab haddaanu muuse ku dayan madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaayo oo ah damalka jamhuuriyadda somalilan ay harsato ee ah mujaahidkii ugu cimriga dheeraa berigii halgankii guddoomiyenimada ee ahaa ninkii markii 80 cod lagaga helay u samray si uu qarankan iyo jamhuuriyadda somalilan u badbaadiyo war haddaanu ku dayan mujaahid muuse biixi cabdi oo halganka ka soo qayb galay oo garanaya dadkan iyo dadkan waxa ay galeen ama waxa ay soo mareen haddaanu ku dayan mujaahid axmed maxamed siilaani ama madaxweynaha qaranka war ma wuxuu ku dayan lahaa xirsi cali xaaji xasan waanu garanayno siduu kursiga ku yahay iyo halkuu dhigay kii uu ku fadhiyeyba xirsi waxaan weli fahmin in casharka koowaad ee siyaasaddu tahay dulqaad iyo samar haddaba waa yaabe muxuu qalin jabiyey haddaanu casharkii koowaad saxinba jamhuuriyadda somalilan dadkeeda waxaan leeyahay meel kastay ku nool yihiin dib u milicsada xirsi xaaji cali xasan oo ahaa wasiirkii hore madaxtooyadu labadii xil ee qaranka jamhuuriyadda somalilan uu ka qabtay mid waxa weeye waa kii commissionka iyo siduu kaga tegay waanu garanayno una soo socdo wuxuu sameeyey ee uu ragga kale ku eedeynayo ka kalena waxa weeye kursigii ugu baawarka weynaa wasiirada jamhuuriyadda somalilan ee madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan ku aaminay ee uu damcay inuu dadkiisa ugu shaqeeyo waxa uu ku bedelay inqilaab inuu ku sameeyo iyo khaayinimo uu qaranka ka galay oo runtii ay tahay inuu xadhi ku jira maanta ayay ahayd waxa uu dalkan ka galay iyo waxa uu ku sameeyey inuu halkanba ka hadlo ragga dalka u soo halgamay uu maxaan ku dhahdaa marba masrax kaga hadlo ma ahayn waxa ahayd inuu xadhi ku jiro anigu fikriyan sidaan qabo haween yarkaa raagno ma fahanteen in badan bay hadlayeenoo markaa magaranaysaa waxaan ku leeyahay waddanigii baan ugu dhex jiray waxaan ku leeyahay xirsiyow muuse dariiqi axmed siilaanyo uu jeexay ama ay wada jeexdeen halgankii ayuu ku taagan yahay waanu gaadhayaa halkuu doonayo oo ah inuu noqdo madaxweynaha xilka uu ku wareejinayo mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo waayo ma aha muuse siyaasi sidaada oo kale u degdega oo inteeda ayuu soo jiray una soo samray siyaasadda ee balaadna waxaad isku daydaa sidaad madaxweynaha soo socda waa muuse biixi cabdi ee mujaahidka wax uga sii baran lahayd adigoo meel kaga yimid degdegsiino iyo damac
meel la-aaneed talada aan ku hayaana waa taa adiga ayaanay kuu taallaa aqbalka iyo aqbal la-aanteedu waxaad sheegtay dagaal sokeeye ee dalka ka dhacay 1994kii oo aad tidhi muuse biyaha cabdi 2 sannadood dagaal buu ku dhammaystay isagoo adeerkii la jooga adigoo ka hadlaya ilaahay naxariistii jannaha siiye madaxweynihii hore jamhuuriyadda somalilan mudane maxamed ibraahim cigaal xitaa dadka dhintayna ka baxsan maayaan xirsi iyo fahankiisa may fahanteen somalilan madaxweynaha qarankan maxaan ku dhahdaa maanta inaga hooseeya islaamnimada waxay ku faraysaa iyo somalilandnimada waxay ku faraysaa iyo dadnimada waxay ku faraysaa war xitaa haddaad wax ka qabto ninka dhintay cafwan waa loo duceeyaa war beenayaan doorta ya dagaalkii sokeeye ee dalka ka dhacay waxa uu ahaa mid laga bogsaday oo shacabka iyo qaranka ba dhaawac ku ahaa muusena mujaahid usoo halgamay dalkan ayuu ahaa mana aha nin lagu eedeyn karo dagaalkaas waa adiga xirsiyow ninka dalka oo xasilooniya iyo nabad ku jira intuu iska casilay xilkii commissionka qaranka jamhuuriyadda somalilan dabadeedna baabuur soo kaxaystay ee kurka ka jaray ee qorya saaray si uu dalka iyo dadka uga dhex qarxiyo dagaal sokeeye qof kastoo jamhuuriyadda somalilan jooga muu ilaawin ee wuu ogaa waxaa dalkan iyo dadkan aad ka gashay maantana waxaan filayaa inaad adiga iyo ina ciro iyo kooxda kula socota ee maalin walba intay tviyada soo taagaan leh dagaal baanu ridi doonaa uu kii ugu dambeeyey wasiirkii cadaaladda 5 sannadood ahaa xuseen axmed caydiid dagaal baa dhici doona aad leedihiin xirsi oo dadku way ka foojigsan yihiin waana yaqaanin waxaad tahay iyo waxaad guddo iyo waxaad kari kartaba waxaase ilaahay mahadiye in cid idinka aqbalaysaa ama idinkula xulufoobaysaa aanay maanta jirin waa ilaahay mahadiye inay ummadda jamhuuriyadda somalilan oo dhami ay maanta arkeen dalkooda halkuu socdo iyo wuxuu ku fadhiyo iyo qiimuhu ku fadhiyo waxa aad maleegeysaan ee aad tifiyada isla soo taagaysaana aanay maxaan ku dhahdaa ay arag una arkayaan ka intuu tv-ga soo taago kii cadaaladda qaranka jamhuuriyadda somalilan 5 sannadood maxaa ka ahaa ee maalin walba arkayay cid la soo xidhayo ee isagu wasiirka land ministeriga uu ahaa ayaa soo taagay oranaya maxaa hebel loo xidhaya war Sacuudiga adigu shalay baas gareeyay war xirsi oo Sacuudiga adigu shalay too ma fahanti amarka bixinaya guriga loo dhaco ya reer cirga waxa ilaa ma taqaana qolaaga baaqrinti war adigu saama ku ogeyd ma fahantaad ya xaqeen ku noolahay xisbiga wadani iyagoo aan wax gacana oo la sheegay ka geysan abaaraha oo muddo bil ahna wareegay dibadda ayaa waxay had iyo jeer ku ceebeeyaan kana abuuraan wax qabadka xukuumadda madaxweyne axmed maxamed siilaanyo hogaamiyo ay ka geysatay taakulaynta iyo abaarka dabeeraha hogaamiyaasha xisbiga wadani oo hormoodka u yahay cabdiraxmaan ciro had iyo jeer ku tiqtiiqsiga shacabka tabaalaysan jamhuuriyadda somalilan ee abaaruhu haleeleen iyagoo sida xirsi gaab sheegaya qof kasta oo wax ka dhacaan ama meel qof wax ku dhacaan kays deldela iyo mid dar ilaahay u dhintaba uu dasha ka saaray madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo xukuumaddiisa waxaana leeyahay xirsiga saaxiibkii cabdiraxmaan ciro saaxiibayaal intaa dalxiiska ku maqnaydeen dibadaha waxa ay madaxweynaha iyo xukuumaddiisuba ay dagaal ugu jireen sidii ay u badbaadin lahaayeen shacbiga ay abaartu heshay ee jamhuuriyadda somalilan iyadoo aan waxba kala hadhin intii awooddooda dhaqaale gaadhay
waxaa taa beddelka waxaa u madaxa xisbiga waddani dibadaha ka wadaan sida ay siday u hagaardamaan lahaayeen hayaanka loogu jiro horumarka jamhuuriyadda somalilan iyagoo meel kasta oo ay tagaan dhigayay waraaqo been abuur ah oo wax lagaga sheegayo hanaanka maamul iyo xukuumadda madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed siilaanyo uu hogaamiyo sida iyaga oo wax ka sheega d b well iyo saldhigga military ee berbera ee jamhuuriyadda somalilan ee uu yahay kii golihiisu u baaskareeyey golaha guurtiduna ay baaskaraysay ka siisay maxaan ku rahday dalka imaaraadka carabta saaxiibayaal waxaan idin leenahay laba kala daaya in marka aad baryootantaanna in dib loo dhigo doorashada aad marna ku baryootantaan in doorashada dib loo dhigo iyo in marka laydinka aqbalo aad haddana ku eedeysaan in xukuumaddu doonayso dib u dhigista doorashada waxaa taa idinka habboon idinka oo usoo diyaar garooba doorashada dhici doonta oo ah mid xalaala isla markaasna usoo bandhigi doonta usoo bandhiga ummadda qorshihiina siyaasadeed ee aad ku doonaysaan inaad ku hantidaan kursiga qaranka jamhuuriyadda somalilan ugu sar waxaa hubaala inaana ceeb iyo dacaayad iyo been abuur kursiga lagu gaadhin ee qorsho lagu gaadho qorshahaasna jamhuuriyadda somalilan maanta inuu mid qurhayo oo xisbiga qurhahayaa uu yahay xisbiga kulmiye oo maantana madaxweynaha ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed siilaanyo musharaxna uu kala yahay mujaahid muuse biixi cabdi intaas waxaan kaloo leeyahay arrinka doorashooyinka ee aada meelaha la wareegeysaan dowladda lacag baa lagu leeyahay iyo waxaana lagu sameynaya dowladdu lacagtii budgetka ugu jirtay doorashooyinka iyo tii ay diideen ama ay yidhaahdeen ma bixin karno maxaan ku rahdaa deeqbixiyaashu dowladda qaranka jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed siilaanyo ayaa bixisay waxaan kaloo u sheegayaa ummadda jamhuuriyadda somalilan meel kastay joogo inaan 1 shilin oo doorashadu ku baxayso aanu habsaamayn waktigeeda iyo qorshaysan tahay la bixin doono waxaan kaloo idiin sheegayaa inay doorashadu nin diyaar u ahayo nin aan diyaar u ahaynba ay waktigeedii ku dhici doonto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Khalid Bulshaawi Somaliland Special TV waan ka socdaa si weyn baa ugu jawaabtay xasi muddo 3 daqiiqadood ka badan hadalkiisa guday xasi muddooyinkii u dambeeyay xukuumaddu si weyn bay u dhaleelisay gaar ahaan xisbiga wadani Muuse Biixi oo boorama ka hadlay wuxuu ka marakacay oo sheegay inuu xisbiyaha xukuumadii ugu awoodda badnayd xukuumaddiina adiga laftarkaaguna imika awoodiisi waa araba waxaa jirta la taliyayaal dhawaan is casilina waxay sheegeen in madaxweynuhu aanu talinin oo dad kale ay arrimiyaan taliyayaashu muddooyinkii dambeeyey sii xoogaysanayay adigu maxaad ka leedahay maxaan ka idhaa afka wadani waad ku hadlaysaa war dalkan waxaa ka taliyay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed siilaanyo isaga ayaa ka taliya isaga ayaa maxaan ku rahdaa qorshaheeda lahaa isaga ayaa iminkana qorshihiisa leh xersana awalba muu lahayn wuxuu madaxweynuhu u agimado ee uu dhiibo ayuunbuu samayn jiro wuxuu ahaa gacan yaraha madaxweynaha hal su-aal baan ku weydiinaya mas-uuliyiinta dowladdu ama xukuumaddu inta badan waxay warbaahinta ama media ku eedeeyaan inay gudbiyaan hadalla xanaf leh ama xaji adigiyo afhayeenkii dowladda ayna imika halkan hadallo ku qalafsan itagiska saxaafadda ayaad halkan ka gudbinaysa maxaa ka mid ah labadaas sidee isu maxaa ka mid ah waxaa ku waafajiseen etagiska saxaafadda kamarad baad iibsato baa laga yaabaa waa run inqilaabku waa nooca hadalka aad garanayno af soomaaliga aanad garanayne ha saxaafaddu baad gashee macnaheedu waxaa weeye inqilaab fashilmay ayuu dhigay weeye macnaheedu marka luqadda soo baro waxaa ka socda telefishinka Somali News su-aasheedu waxay tahay dowladda federaalka Soomaaliya waxay keentay inay
ciidan keli doonto buu hooday afayeenkii waxaad tahay dowladda arrinkaasi sidee u aragtaa والله waxaan u aragnaa qolyahan u jaarka nahay ee Soomaaliya iyo Soomaaliland way yaqaaneen ciidankii Afrika ugu xoog weynaa ee Maxamed Siyaad Barre uu hogaaminayay Soomaaliya markuu hogaaminayay ee Soomaaliland la dagaalantay cid burburisay horta waa Soomaaliland weey ragga maanta Soomaaliya ka taliyana ha ku cibra qaataan baan leeyahay annagu waxaanu nahay dawlad iyo dad doonaya inay nabadgelyo kula noolaadaan jaararka maxaan ku rahdaa jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan laakiin waxaa naga go'an oo ballan qaada inaanan xuduudaha jamhuuriyadda Soomaaliland cidna uga daba fadhiisanayn ciidan ragga soo arkay raggii waddo way joogaan way nool yihiin hadama fahanteen nabadda ka taliyaan leenahay tiina idinka baahan ciidan inaad geysaan oo dalka nabadiisa sugtaane jamhuuriyadda Soomaaliland xuduudahooda iyo dalkooda way sugayaan fariintaas waxaan u diraynaa madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha u diraynaa ummadda Soomaaliya ku nool baan u diraynaa walaal waxaan doonaynaa dad jaara oo saaxiib leh aan noqono haddii aad ka soo xadgudubtaan oo aad soo dhaaftaan oo aad tirahdaan hagardaamay ama ku soo duula qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa hubaala inaad sidii kuwa hore ugu fashilmeen mid ka xun aad ugu fashilmi doontaan waxaan ku darayaa qodob aan ilaawayo in badan waxaa noo wada socday wada hadallo BBC-da wararku sidaa la qoray ee jaraa'idka Soomaaliland lagu qoray waxaa la isla qaatay oo BBC-da iyo adduunweynuhu baa BBC-duna aragtay adduunweynuhuna arkayaan maamul goboleed inaynaan ahayn waa guul u soo hoyatay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland self declared Republic of Somaliland ama jamhuuriyadda iskeed u madax bannaan ee Somaliland mar haddaad jamhuuriyad tahay oo 25 sanadood aynu ku doodayna inaynu jamhuuriyad nahay waxaan qabaa uga mahadnaqayaa ragga warfaafinta halkan jooga odayaasha ah madaxda warfaafinta ee saaxiibada ee halkan ka shaqeysa ee shirarka aan wada gelaynay inaanu ku qancino BBC-da inay dalkan yihiin dal isku filan magacaasna aan u qalmin ee magacyo kale oo ku habboon loo raadiyo adduunkuna aanu jecel lahay inay qaataan oo ka howlgalaan howlaha caynkaas waxaad imika sheegtay halkan aad ka sheegtay in xukuumaddu qaadhaan gurmad ay dadka u fidisay waxaa jirta in hay-adaha warbaahinta ee dowladda aad ka joojisay wararka iyo barnaamijyada ku saabsan sixir bararka iyo shoobiyooga iyadoo xilligan la taagan yahay maxaa keenay inaad joojiso barnaamijyada iyo warar ku saabsan sixir bararka iyo shoobiyooga yaa joojiyey ma yaa joojiyay adeer adaa joojiyey حاجة أنا ذكرت وحى هذا محمد شوشين waxyaabahan hoos baa la isu weydiiyay qoliyay kamarada soo qaatay waad ha ma garatay waxa la wax ka jira ma jiraan adeer hadda laakiin xitaa fikir ka qabto saxaafadda eticskeeda waxa kamid ah ninka etics ka hadlayay hadda su'aalaha qaar kood qabto oo aanad hubin wax la wax ka jira waxa haboon fagasta waan ogoleynaa taa warinta caankaas ma fahanti waxba kama aanan joojin shubin biyoodku waa mid jira dagaal baynu kula jirnaa wasaaradda caafimaadka ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland si xoog ay uga howlgaleen hadda soo garan maysid sicir bararkuna kama aanan joojinaa meel ee waanu la dagaalameynaa adiguna la dagaalano dollarka iska daayo lacagta Soomaaliland qaado ma faahday assalaamu calaykum warahmatullahi يا أوليتي